السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته دمان ولاalaha muslimiinta meel kastoo dunida aad ka joogtaan caafimaad iyo cumri dheer iyo cibaadadsan od ku wartan ayaan idin rajaynaya waxaanu halkii kasii wadnaa duruustii ku saabsanayd ducooyinka mustajaabada ah oo ilaahay subxaanahu watacaala qofka hadduu si niyad khaalis ah inta ula yimaado uu ku baryo ducooyinka la aqbalo ayaanu halkii kasii wadnaa ardada waxaan rabaa inaan ku update gareeyo u sheego ciddii danaynayso ee ku xiran duruustan usbuucii waxaanu soo gelinaynaa 3 cashir maadaama casharada ay badan yihiin iyo barnaamijyada aanu idinla wadaagno marka darsigan waa darsigii labaad ee kitaabkan aad arkaysaan cashirkeena marka wuxuu ku saabsan yahay waa cashirkii labaad ee kitaabkan aad arkaysaan ee ducaa ulmustajaaba ducooyinka la soo arooriyay ee mustajaabada ah darsigan wuxuu u baahan yahay si gaar ah in loo dhuuxo oo waxay duruustu casharada markii la qaadanayo waxaad moodaa casharadu inay kala xiiso badan yihiin oo kala macaan yihiin oo marka ardadii maanta cashir hebla ay dhaafay u leeyahay cashirka maanta casharada waa iga duwana wax badan baad maqasheen baan filayaa dad ardaynimo soo martay darsigan maanta waxa weeyaan ducadu qof walba wuxuu jecel yahay adduunka intuu joogo ilaahay markuu baryo baryada in laga aqbalo wuu jecel yahay haddii la oofsado oo uu dhintana inuu janno galo qof walba waa jecel yahay sax haddaba marka ducadan maanta aan idiin soo wado iyo qaabkan aanu sharaxi doono waxay ku tusinayaan in wixii aada u baahnayd oo dhan ba halkan ducooyinka aada u baahnayd oo dhan inaad halkan ka heli karto allahu tacaala kusoo dhawaada duruustii waanu bilaabeynaa idanka ilaah subxaanahu watacaala insha allah marka cashirka ayaanu bilaabeynaa darsigeen maanta ciwaankiisu waxa weeyaan ducaa biasmaa'i lxusnaa baryada lagu baryo ilaahay subxaanahu watacaala magacyadiisa wan wanaagsan qaala lahu subxaanahu watacaala ilaahay sareeye wuxuu leeyahay walilaahi alasmaa'u lxusnaa fadcuuhu biha ilaahay subxaanahu watacaala isaga ayaa iskaaga barayo waxaan leeyahay buu leeyahay magacyo wan wanaagsan ayaga igu barya magacyadaas wan wanaagsan qofka si ikhlaas oo niyada oo la yimaada ee ilaahay subxaanahu watacaala ku baryo waa uu ka aqbalaya sheekha marka wuxuu leeyahay kitaabka qoray fasubxaanahu nazahnaaye ilaahay subxaanahu watacaala ayaa nazahan oo wax xun oo dhan ka nazahan min rabbi lkariim raxmaanu lkariim rabbiga kariimkaaya wanaagsanaa ee na abuurtay raxmaanu lkariim raxmadiisuna ay waasic ahayd ee ay wanaagsanayd calimnaa wuxuuna baray asmaa'ahu magacyadiisa alxusnaa ee wan wanaagsan allatii hiya likhayri اdunyaa waalaakhira taas oo adduunya aakharaba lagu liibaanayo magacyadan wan wanaagsan qofkii ilaahay ku baryo adduunya aakhara waa ku liibaanaya fadcuuhu biha buu leeyahay sheekha kitaabkan iska leh ku barya ayaga was'aluuhu min fadlihi alcadiim fadligiisa weyna ilaahay subxaanahu watacaala wax ku weydiista ilaahay subxaanahu watacaala wuxuu leeyahy waaataakum min kuli ma sa'altumuuh ilaahay wuxuu idin siinayaa wax kastood weydiisataan wanaag kastood ilaahay subxaanahu watacaala weydiisataan waa idin siinaya wain tacuduu nicmat allahi laa tuxsuuha nicmada ilaahay uu idin galay waxaa weeyaan ma koobi kartaan ilaahay baad baryeysaa waxaa laga yaabaa inaad xanuunsan tahay waxaa laga yaabaa inaad dhib fara badan qabto sidaasoy tahay haddana nimcada ilaahay uu ku siiyey adigoo sidaa u xanuunsan adigoo dhibaataysan adigoo faqiir ah adigoo yacni isleh yacni dadku way kaa maaragtay fiican yihiin maxaa dhibaatadan adiga keliga ilaahay kugu koobay adiga oo isleh ayaa haddana nimcada lagu siiyey baadan marnaba soo koobi karin lian waxaa laga yaabaa inaadan curyaan ahayn xitaa haddaad curyaan tahay neeftan yartaa oxygenkaas lagu siinayo
marna maaragtay soo baxaysa marna noqonaysa neeftaas kaliya nimcadaas bas aadan maaragtay soo koobi karinba ma soo koobi kartid idan marka waxa weeyaan iska badaa qof ilaahay subxaanahu watacaala caafimaadkiisii lixaadkiisii maaragtay wax walba ilahay u dhamaystiray hanti xoolo qofkaasi waxa weye nimcadiisa asagoo iska badaaye nimcatu diin islaam qofki ilaahay subxaanahu watacaala uu siiyeyna waxa weeyaan waaba nimco kaga maqanba ma jirto qofki ilaahay subxaanahu watacaala xaqa waafajiya diinta maaragtay oo ku sugay marka nimcooyinka ilahay ma soo koobi kartaan wey وقال النبي صلى الله عليه وسلم نبي محمد صلى الله عليه وسلم وحيري إن الله إلهي سبحانه وتعالى وحليه هاي 99 اسما وحليه هاي سقاشن إيا سقال مقع أيوليه إلهي سبحانه وتعالى 100 إلا واحدا لا يحفظها أحد إلا دخل الجنة عجيب وحديث صحيحة وبخاري ومسلم بقرن وريين nabi maxamed sal allahu alay wasalam wuxuu leeyahay ilaahay subxaanahu watacaala wuxuu leeyahay 99 magac boqolkii maxaa ka dhiman hal baa ka dhiman qofka xifdiyo oo barto inta barto xifdiyo ku camal falo jannada ayuu gelayaa waa witr tiras dheer weeyaan lian ilaahay waa keli waaxid wuxuu jecel yahay tirada is dheer buu ilaahay subxaanahu watacaala ayuu jecel yahay وقال النبي صلى الله عليه وسلم نبي محمد صلى الله عليه وسلم وحيره إن الله عز وجل وحليه هي 99 اسما سقاشني سقال مقع من أحساها دخل الجنة قفك حفظيه أو حديث كله قفك حفظيه جنة أيوب قليه haddaba marka aanu qeyb ka mid ah akhrino maadaama fideogu dadku inta badan fideoyaasha dhaadheer aysan dhagaysanin mashquul jira awgood waa idiin soo koobay qeybba mar baad xifdinaysaan 99kaas magac kadib waxaan u gudbi doonaa mid walba iyo goonidiisa iyo macnihiisa iyo maaragtay qofkii ilaahay ku bariyo inuu maaragtay ducada ayada ahayd bariyada ayada uu helayo iyo fadaaisha asmaadan sida gaarka ay u leeyihiin ayaa midba mar soo qaadan doonaa balse maanta waxa weeyaan waxaad baranaysaan lafdiga ardada qaar ayaa waxay codsadeen lafdiga inay marka hore bartaan kadibna loo micneeyo ardada ila soo xiriirtay sidaas ayay inta badan u bateen marka waxaan idin akhrinayaa lafdigii huwa allahu alladhi laa ilaaha illaa hu الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح العليم القابض الباسط الخافض الرافع المعز المذل السميع البصير الحكم العدل اللطيف إن شاء الله تعالى كعل عشو أخرسو انتاس حفظي وحجرا وحكستو الله حفظنا قابلو حفظيو هل مر لسكما وضياعيو قيب مر بالحفظية قيب مر بالبرتا كيدي مركا اللفظي حفظيسو ووحا لو يري قفك حفظيو بس لو يري حفظينت بس اياد جنة كو غليسا
كور حداد أسماء أصبح كبر إذا وحي أكبر إذا تكون ليسا حداد حفظ سنة جنة ما تكون ليسا وحويان إخلاص كي وحي كاره بيان وحي كفريان ما عكست يعني فضائي شيء أتكفى إذا ستو جنة تجلسها حكوين مرك فإذا كلوا الراديم يا شرتا الدنيا آخر منا دعاء وإلا حفظية لبرتايان لفظي سنين حنفيلا يا واحد بدنا نقشي بل سأذن كو عمل فل بل هذا كو عمل فل إن شاء الله تعالى برنامج كان كسوق يبقاضه إذن كإلهي سبحانه وتعالى وعن رجالنا إنه كو أنفعه عاد بدو ما سنتم وبالله توفيق والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بلشوي بشارو warheede waa maxay bishaaradu soo moogid in laga raystay xarumihii dadka badan la isku dhex cilaajinayay oo Dr. Axmed Cilaaj uu furay xarun dadka si gaargaar ah lagu daweeyo ilaan xaaji xasadkayga baad ahayd maxaad mar hore ii geen wayday xaruntaas sida gaarka ah dadka loogu daaweeyo waa adiga boqolka qof igu dhex darayeen haddaba ina keen aan booqanay Dr. Axmed Cilaaj laga raysay wixii hore Al-Hilaal Herbal Online waa xarun daawo dhireed oo leh goob jiifa bukaanku ku nasto ilaa uu ka bogsanayo laguna daaweyn sidoo kale Al-Hilaal Herbal Online waxay leedahay gargaarka degdega ah oo qofka xanuunsanaya gurigiisa lagu soo daaweyni Al-Hilaal Herbal Online waxa kale oo laga daweyn macaanka dhiigkarka rheumatismka maqaarka kaliya xanuunka massage toobin waafaqsan sunnada allergiga gastriga iyo daawo ka caawinaysa dhalmalaanta jinka iyo umusabiyaanka xarunta Al-Hilaal Herbal Online waxay ka daaweynaysaa riyooyinka baqdinta leh iyo qarowga ayada uu diyaar kugu yahay specialist Dr. Axmed Cilaaj daawadiisana lagu caafimaaday haddaba waxba yaan hadal kugu daalinine soo booqo xarunta Al-Hilaal Herbal Online oo ku taala xaafadda Islii Second Avenue gaar ahaan qaybta 7 Street wixii faafaynta si dheer kala xiriir telefoon lambarka eber 7 eber 5 7 7 7 4 7 hal oo laga heli karo Dr. Axmed Cilaaj